madaxweynaha xilku hadda ka dhamaaday oo yiri murashax baana isagana fariin baan diraya madaxweyne cabdi weli أنا فيلم ما يناسب الحس. يا لو جير هراتنا هو مشرح مرشح ما عندي ما قصته شيء كده. على هذه آد وحصوصنا أفريت منك جنوبي لما يكون أفريت منك ما أنتي الحلك كوري جنيه وصور كذا عن هيو. marka xilka ku wareejiyay oo ku mariyay ciidamadii aan gacanta ku hayay intii aan ka gaari karo ma xarunta joogtay inta kale aan ku tilmaamay tarakoobkooda ku siiyay wixii aan gacanta ku hayay maca gurigii furihiisii alaabtii furniture-kii loo soo gaday oo sidiisii container-da ugu jira aan ku furay ku tusay inventory oo dhan aan ku dhiibay labadii saddexdii mashruuc oo caanka ah aan ku dhiibay oo ahaa mashruuca aeroportka Garowe Boosaaso oo soo dhamaaday feeskiisii dhamaa tartankiisii shirkadihii gacantana ay ku haysay Unibos ee hadda UN-ka u qaabilsan dawladda Talyaaniga bixisay lacagta Unibos baa maamulisay oo supervision-ka lahayd oo ay sameeysay aan ku wareejiyay hawsha inay bilaabato aeroportka Garowe iyo muxuu ahaa jaamacadda Maakhir oo iyagana heshiiskoodii la soo saxeexay 10kii bishii Oktoobar 2010 oo daahay waan dhowr jeer ka hadlay sababta oo u daahay ay hay sabab adu qayb ka ahayd inta joogtay xamar joogtay isagana documentigiisa baan ku wareejiyay master plan-kiisana waan hayaa maanta master plan-kiisa laguma dhaqin inta samaysan soo qabiya feeska labaadna aan loo raadin waladii hawsha maamuleysay oo ahayd nimanka la yiraahdo Kuwait Fan oo loo dhiibay qandaraaska nimankii qaatay subcontract ay ku bixiyeen lacagtii ayna ku wareejin 1,700,000 wili ay ku maqan tahay 500 oo kun markii hore dulaaliya malaalay kala qaateen aduu aad ka wareysay rag ay hayeen qaar wasiir ahaayeen anigu aan maqashoonahay ama hal deer aan ogahay anigu ay Australia kala soo hadlay oo aan ku yiri mashruuci feeska labaad ma ahayn kii rabta ana bixinayo lacagtii imaaraadkan ka bixinaya xogaaga magdhow ahaan intii hore looga xaday tuuganimadii ku jirta hadda aeroportka oo runway-ga laamigu saaran yahay la rabay 45 inuu ahaado runway-go dhan oo ahaado 60 markii xajka sanadka la aadi gaaray diyaaradii ku degi kari waayay ilaa kuma kala wareegi karo terminalkan ma tegi karo qaaraankii aan nalka ururinay hadda aan ku balaarinay shirkadiina aan niri soo codsada bal inta ay dhiman tahay lacagtaas inta ka dhiman 1 milyan way noqonaysaa inta ay qalabkooda furfuran in la sameeyo xamar bay taala arqalada aad calaaqaadka gelisay labada dawladood dhexdooda aad gelisay baa lacagtaas u imaan weyday waa taala baasha caalamka bixisay deesha caalamka waxay sugaysaa inta maamul yimaado madaxweynaha iyo prime minister-kuna gacanta ku hayaan qoraalkii waa diyaar waa la sameyntaas waa ugu bishaareynaya dadka reer Puntland in ay lacagta aeroportkaas oo dhamaan doono qaybtaas intaasna waa taan kugu wareejiyay aakhir jaamacadana waa sidoo kale wadadii Chinese ku sameeyay inta ay ka marto mudug iyo nugaal iyo sool iyo inta biyo baxdada ilaa Boosaaso iyadana waa taan kugu wareejiyay faylka saddexaas mashaariic waxay madaxweynaha oo bixin karay oo gacanta ku hayay inta kale wasiirada iska lahaa inta dhigtada ku soo dhacaysa Cabdullaahi waa dad intuu hadda tago warma qabta anaa sameeyay ama sameeyay waxaad sameysay oo aad bilowday oo aad dhamaysay balow dadka farta u saar bal dadka u faars ama hadda iyo qabta aad nooga tagayso oo gacanta hadda lagu hayo taas waxaan ku leeyahay waxa weeye dawlad dhamaystiran inaan marka kugu wareejiyo 14 afkaa ka qirtay meedida ku jirta waxaan ka codsanayaa inaad saartaan maalmaha wixii Cabdiweli afkiisa ka soo baxay been aan laga sheegay run ah inuu yiri dawlad dhamaystiran ciidamadeedii iyo xukuumadeedii iyo dhismayaasheedii iyo waxba lagu wareejiyo bal arintaas soo saar taas waa wixii Cabdiweli afkiisa ka qirtay su'aashu waxa weeye marka Cabdiweli maxaad adigu hadda maanta wareejinaysaa waa inuu wada joognaay hadii ilaahay idmin bal maxaad wareejinaysaa saadaasha aan hayo ma soo noqonaysid maxaad wareejinaysaa maxaad wareejinaysaa waxa weeye
waxaan ka maqlay idaacadaha weli wuxuu yidhaahdaa mashruucyada isteedyadu ay gobol degmooyinka ay ka shaqeeyaan councilska GBLG-ga layidhaahdaa goormuu ahaa kaas 5 sano oo aan anigu joogay waa socday waaba ugu imisa waa markaa barnaamijku diyaar ahaa dowladda iga horeysay oo diyaar waqtigeeda ahaa welina waa socona waana socon doona wash waa la yidhaahdaa barnaamijyada musulo iyo waxaas la sheegayay musulahaas islaamada waa iska qodan karaan bacadidaas waxaas nin weyn mushir la yimaado 5 sano madaxweynaha ma haddaba kolley nin xil hayay waxbaa laga filaayay inuu sameeyo waxaad maanta adigu noo sheegay kadib bal noo sheeg badrool baa anagu qodnay meel baanu ku signay 2 ceel baa nugaal diyaar ka ahaa laga qodo Soomaali oo dhan baa lahayd laakiin hawsha la sii qaban lahaa waxaan laga filayay marka waxay ahayd wixii anigu aan wareejiyay amni dhaqaale sugan arrimo bulsho ma garatay mashaariic siyaasad degsan oo nidaamka federaalka ku dhisan oo maamuladii ay dhisan yihiin dowlad goboleedyada dadku u yaqaan laakiin dowladaha xudda ka ah dowladaha federaalka arrin dhisan yihiin qaarkii la soo socdaan waxaad ku bedesheen carqalad baad ku bedesheen waa ku soo noqon doona carqaladaas amnigii dalka oo sugnaa cabdi weli waad burburisay ciidankii daraawiishta meel ku sheegay booliskii maanta magaalada amnigeeda sugi lahaa ciidamadii badda sugaya oo dowladda saaxiib nahay iyadu gacanta ku hayso tirakoobkiisa iyo tiradiisa iyo maalgelintiisa iyo shaarooyinkiisa gacanta ku hayso ciidankii asluubta meel lagu sheegay ciidankii Somali National Army oo Soomaaliya oo dhan ka dhaxaysa qaybta aan ku lahayn iyo booliska bal meel ku sheeg 3,000 oo ciidan ah ayuu ahaa safiirka Mareykanka 2013 James Swan 3,000 baa qayb hesheen buu mushaarkooda annaga bixinayna diyaar garaysta inaad diyaaraysid baan kugu wareejiyay ilaa hadda lama hayo gobolada aan weli maamulku wada gaarin walmanka odayaasha ah weli meelo badan ay weli ka haystaan aan gaarin ciidanka NSNA waa u dhisan yahay maxaad biri Soomaali kaga qayb galaysaa u tagaysaa meel walba waa la tababartay meel walba waxbaa la yaqaanaa saraakiil hoose dhisantay saraakiilna dhisantay ciidamada dhisnay maxaad Soomaaliya 5 sano oo la soo dhaafay aad diyaar garaysay oo aad ka galaysaa hal askari iyo hal sargaal oo aad tababar u dirtay umaleyn maayo inuu jiro waaba huba ay message jirin kuwii anigu aan tababaray bariyahaas xamar baan ku arkay nafta la aadeen kuwa madaxtooyada waardiya ka baan ku arkay oo tahay halkaana meena maarayaal iyo meelaha meelooyinka looga baahan yahay halkaana looga baahnaa laakiin xaggaas haday aadeen waxba ma dhiman anigu mar haddii meel kale ka qabanayaan waa isla sidii marka arrintaas burbur amni baad wareejinaysaa dhaqaale nasiib xumo nin yiri PhD waan ku haystaa dhaqaalaha oo makiinad intuu soo gato hol bangiga ku dhagan intuu dhigto daabacdo isaga iyo gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ay iyagu lacagta leeyihiin oo ay daabacanayaan warqadahaas oo lagu dhacayo dadka danyarta inflation waxaa lagu dhacaa dadka danyarta masaakiinta maalin walba oohintooda islaamaha enji iyo jooga hargey boosaaso iyo burtille iyo muxuu ahaade burtille ugu dircsanaayo ayaan bay kuwa lacagahaas keenayay masaajidka ku galeen bay ku urayeen kuwii maantay lacagaha gadaayo cadeynay maanta hadda waxaa la sheegay anigu waxaan xusuustaa maalinta xilka wareejinaynay doolarku wuxuu ahaa 320 ayuu ahaa 320 buu ahaa boqolkii kun waxaa 2 milyan iyo 300 ما أنت وحالي روا صدن إيه اللي يا كمسؤولة هذا كمساكين تاو يعني يضيع يعانها كذا يهلب كبا كمسؤولة نسين ننكي نقالها شيء تيو بقول كشيء هذا الشيء جنا يوم معلن كأنه كوها شيء جنا يوم دتكو وريجي شيء جنا شن سنة هالكافر دي بالقول حساب تما يا لقول حساب تي إلى هاي جو سو كل حساب تما يا دتك هالكا جوجنا آخرا وصل على حساب تي أدون كانوا صل على حساب تما Soomaaliya inteeda kale xamal ka mid tahay waxa weeye 2 milyan iyo 400 waay halka doolar marka cid baa malayn ka dhig
madaxweynihii dalka iyo ra-iisul baarlamaan ku-xigeenkii intay makiinad keensadaan bay waxay ku biliqaysanayaan dadkii danyarta ah oo dalkooda ah. qofka marka sidaa sameeyey iyo kuwa kale oo haddaba misna iyaguna rabaa inay guddoomiyayaal ka noqdaan aqalka golaha wakiilada waa inay ogaadaan dembigay galeen inaan loo dhaafayn, dibna looma dooran karo. wixii xishoonaya ama ilaahay ka baqaya ama aakhirad ama dadkooda ka xishoonaya. siyaasadda maqaamkii puntland uu lahaa siyaasad ahaan oo u ahaa tusaale ama role model dowladaha xubinta dowladda federaalka ah maanta dhulku yaalla. maxaa yeelay haddee wixii laga filaayay oo ahaa inay macallin ugu noqoto oo kuwa kale caawinto oo ay u dirto maaragtay qaabka cashuuraha urursanayaan, siday amniga u sugeen, siday maaragtay wixii kaga khibrad rooraayeen, waxaasoo dhan inay ka caawinto. iyadii baaba intaa gurigeedii loogu yimi lagu shiday waxaa lagaga dhawaaqay jabhado SSDF iyo UAC iyo SPM baaba lagaga dhawaaqay garoowe intaa la isugu yimi oo la yidhi Soomaaliya baa xarun ka dhaqaynaa jabhadaan waa la jabhadaynaya. waxaan joognaa waagii dowladii Maxamed Siyaad ay ku bilaabeen jabhadu miyaan maanta joognaa inagoo maanta dowlad federaal ah oo dowladii xubinta ay wada dhisan yihiin oo maanta la filaayo dowladda Soomaaliya in isla wada saan qaado oo adigu aad tahay ninkii lagu tashanayay oo maamulka ugu dhisnaa madaxda ka ahaa hogaaminta wanaagga u noqon lahaa inaad taas noqoto. waxaan inii sheegayaa maanta arrinta khilaafka ahi weliba khaas ahaan dhinaca Cabdullah kuma dhisna khilaaf rasmi oo daacada. dokumentigiisa aan siinayaa si anagu kaga jawaabnay kaas aynu ku filan inay anaga noo kalsoonaan bay ku filay inta hadda meel ku boodayaan mar Nairobi aadayaan midna meel aadayay. waxa weeye waxay ku dhisnayd dukaamaysi dhaqaale. dukaamaysigii dhaqaale oo dowladdan ka horeysay lagu qabay iyo madal in lagu go'aaminayay meeshii maqaamkii ay lahayd baarlamaanka aqalka shacabka iyo kii federaalka magaca la sameyn go-aankooda waxay gaari lahaayeen oo xeerkii doorashada dalka lagu maamulayay samayn lahaayeen in aakhirka ay ku dhammaato waxa soo socda oo dhan inay sidii hore ay ahaato oo ah madal aakhirka damin lagu dameeyo aqaladii baarlamaanka la soo xiro guddoomiyaha aqalada labada guddoomiye aqalada iyo dowladda dhexe iyo inay isu yimaadaan iyo maamulada oo ay kula heshiiyaan oo laga diiday oo la codsaday oo la yiri 2 sano 2021 doorashada aan isla gaaro anaga korsiimo noo sameeyay oo laga diiday oo la yiri intaas oo lacag na siiya qaarkood intay tageen xamar ay yiraahdeen intaas oo lacag ahaan la siiyo anaga soo afxirayne oo laga diiday oo anigoo negotiation kaga jira qoraalka inaan soo saaro madaxweynaha la fadhiya Cabdiweli oo soo wacayo waxaan hadda xaq ka sheegay xaqana oo soo wacayo oo rabayshis daaray la galo intaas oo ogaad. marka ciidina ma maqneen inta khasaare aad gali lahaydeen shacabka showeynow iyo baarlamaanka ay soo doorteen ka tashada meeshaan ganacsi baa yeelay ma oolin dowlad iyo maamul ma oolin. ugu dambeyntii waxaan kula talinayaa madaxweynaha hadda xilka dhamaaday inuu ka tanasulo sharxadiisa. talaabo badan baan siiyay ma uu yeeli jirin wax ku ool mid caam ay ahayd hadda mid shakhsi aan siinay. midda shakhsiga waxa weeye Cabdiweli Juun 9keeda 2014 waxaa tiri haddaan doorasho qaban waayo qof iyo coda iyadoo waraaqihii maamulada dowladaha hoose ay ku codayn lahaayeen loogu codayn lahaa ay ku jiraan maxay karaatintii oo ay yaaleen guryihiina u jaaran yihiin haddaad hirgelin weyday markaad adigu hadalkaa tiri niyadaadu ka soo go'ay laakiin maanta ninkii maahida nin kala ta laakiin dadkii ku dhageysanayay anaga ka mid ah ilaahayna waa ku maqlaay rikoorkaasuna waa kugu jira looxul maxfuud 2014 bishii Juun 9keedii hadalkaa tiri ma sharaxayo waana aan fashalmay adaa isku marag furay. January 5keedii 2016 waxaa tiri isma sharaxayo. March oo sanadkan 10keedii waxaa tiri anigu isma sharaxayo. maxaa maanta isu sharaxay يا سؤال شو واحد محمد السورة وهذا الاسم قليل وهذا ريكورد أنا ريكورد هذا واحد لا ما هذا ريكورد كده أبو يهم بابا شيء جنسي
xildhibaanada udamaynta u sheegay xildhibaanada cusub dhalinyaro u baahantii baa u badantii soomaaliduna waxay tidhaahdaa ama adduunyadoo dhan laga yidhaahdaa mustaqbalka waxa iskale dhalinyarada maxaa looga jeedaa mustaqbalka dhalinyarada waxay u leeyihiin maxaa yeelay qiyaasta bini aadamka qofku meel dhiman ilaah yaqaan inay muddo sii noolaanayaan baa xisaabta ku jirta dadka waaweyna ka hor dhimanaya hadda waa saa inkastoo dad waaweyn weli soo joogaayeen dad badan ay dhintaan oo xasuuq jiro waddankaan oo qaraxyo ay ku dhammaadeenba waxa weeye mustaqbalka idinkaa leh baarlamaankaas baarlamaan nadiifa oo sidaa inii sheegay guddoon fiican iyo guddiyo joogta oo fiican dad wax yaqaan xilkasa nadiifa u doorta maaha nimanka taarooyin wataa inay soo galaan darbida kubitaan tabeelayaal yidhaahdaan meeshuu ma masraxba meesha baarlamaanka waxaan u dhisnay inuu yahay meeshii aqalkii golaha shacabka xeer dejinta maaha meeshii muxuu ahaye hiddaha iyo dhaqanka ninkii kataaro wataay xafiiska hiddaha dhaqanka meel ha ka samaysto dabeelayaasha meesha lagu dhejinayo intaas baan idinkula dardaarmaya idinka dadkiina dadweynahan waxaynu kula dardaarmayaa xildhibaanada idinkayna ka yimaadeen qof walba ama cid walba oo reer puntland xildhibaankeedii ha kula dardaaranto qabiil ha raaci masab laguu sheego la yidhahdo nin wasiira lagu siinaad jeceshahay ama adigu wasiir qaado hadhow ka tanasub oo muxuu ahay xildhibaanka markaan wasiirka ku siiyo ha yeelinina qofkaasu qof dhintay ka dhiga hadduu maanta soo saari waayo qofkii puntland maanta waxay saaran tahay qabri daankiis wadnaha digle nafti baan ka bixin inay naftu kusoo noqoto tusaalihii soomaaliyana oo soo noolaado oo tusaalihii soomaaliya halkaa uu ku dhimo haddii halkaa tusaale soomaaliya ku dhinto soomaaliyana waa dhimato maanta xildhibaanadaas puntland iyagaa dilay soomaaliyan iyagaa dilay hadday maanta sidee la rabay ay yeeli waayaan oo ay usoo saari waayaan maanta nin madaxweynaha oo hawshaa qaban kara ay soo saari waayaan aniga nin aan u ahay campaign manager ma jiro nin aan intaan dad ula hadlo oraya hebel doorta ma jiro dadku ways yaqaanaa qof walbana waa la garan karaa qofkii ilaahay inii dooro ilaahay inuu ku ahaameeyo doora laakiin lanaam qabyaaneed ha raacinin intaas way ballantaydu aniga asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu